mahadsantaha ku soo xasan wada هاي وين عمدان waa salaamay adiga Nabil waa your generous maaragtay human beings marka waa ku mahadsantihiin wareysiga waan dhageystay runtii wareysigan wuxuu un ku salaysnaa oo isagaba malaha sababay maqaalkii uu qoray 19 bishan uu bejkiisa ku qoray marka runtii dadka xogogaalka oo ah geeska Afrika iyo arrimaha ka socda iyo arrimaha khuseeya Somaliland iyo Soomaaliya wax weyn uu ku soo kordhiyey anigu ma garanayo. To some extent waxaa la dhihi karaa ujeedada interviewga anigu ma fahmin laga lahaa markii hore shakhsi ahaan ma fahmin laakiin wax fara badan oo kale oo uusan ku qorin articlekiisa ayuu iftiimiyey waxaan la filaynina way ku jireen wax la filayena way ku jireen marka guud ahaan waa safiir hore taa in la qiimeeyo waa lagama maarmaan waa laga doodi karaa waxyaabaha siduu u cabiray waxyaabaha qaarkood laakiin arrinta aasaaska u ah waxaa weeye safiir hore oo hadda dadka qaar ay leeyihiin waa lobbyist oo retired ah ayaa wuxuu ka hadlayaa arrin la xiriirta Somaliland iyo Soomaaliya oo xisbiga xukunka haya iyo senataro kamid ah iyo think tanks kamid ah xisbiga muxaafadka ee dalkan oo waaweyn ay miiska u saaran oo hadda ka wada hadlayaan marka aragtidiisa wuu ka dhiiban karaa laakiin laba awoodood oo siman ma aha waxa laga rabay anugu ma garanayo iyo isaga waxa uu doonaya laakiin anigu markaan muraayadeyda ku fiiriyo Somaliland interviewgan iyo maqaalkaaba inuu wax weyn taraba anu aaminsanahay maaragta shakhsi ahaan aan aaminsanahay marka wixii gaar su-aala ii weydiinaysaa waa isku dayi karaa inaan ka jawaabo laakiin waa arrin loo baahnaa bay ahayd inay soo baxaan sida uu sharxay iyo aad iyo guud aad ahaan go ahead waaya professor waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo laba saddex qodob oo hadalkiisa ku jiray haddiiba aynu arrinta somaliland ku soo noqonno hadhow waxaan rabaa imika in wax kaa weydiiyo wuxuu tilmaamay dadaaladii xilliguu safiirka ka ahaa soomaaliya laga waday gobollo soomaaliya ka mida oo la doonaya in lagu sabata bixiyo shacbiga soomaaliyeed gacanta u galay kooxaargixisada oo loo ballan qaaday waaga shacbigaas haddii ay diriraan oo dagaalka qayb ka noqdaan in ay helayaan safety oo dowladdii soomaaliya iyo bulshadii caalamka ee ay garabsanaysay in hadda nimankii ay ku soo noqdeen dhulkii iyo deegaanadii ay dib u qabsadeen arrintaas inay walaac weyn ku hayso marka arrintaa iyadaa aan filayo iyada qudheeda inaan wax badan kugu seeganayn siday kula muuqataa walaaciisaas iyo damqashadiisaas uu u damqaday dadka shacabka uu yidhi markii hore waxaa lagu qanciyey inay dagaalka qayb ka noqdaan laakiin nimankii carrada ka kacay baa dib ugu soo laabtay si arrintaas kula muuqata nuxurka markaad eegto yani wuxuu karbaash ku dhuftay xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud runtiina waa arrin aad iyo aad u xanuun badan weye la ogyaha laakiin inuu safiir hore oo maraykanka ah oo arrimaha ku howlanaa uu ereyga ku dhawaaqo yani macno weyn ayay u samaynaysaa dadka siyaasadda ka shaqeeya iyo dooda maraykanka ka dhex socota ee lafteeda somaliland khusaysa labadaba yani wuxuu qirayaa in ajenda kamida ajendayaasha ugu waaweyn ee dowladaha reer galbeedka oo maraykanku kamid yahay ay maalgeliyeen adduunkuna maalgelinayay yani ku dhacay reversal xunguul darro weyn lagala kulmay isagoo sii dhaafinaya oo arrinta ku saabsan yani maxaa dhaca markii
qolyahan argixisada al-shabaab degaan haysan jireen xukuumadda ay qabato kadibna dadka ay ku soo noqdaan maxaa dhaca arrinta waa arrin u baahan runtii in xog fara badan laga ururiyo laakiin xogaha inta la garanayo dadka waxaa ku dhaca ciqaab adan malayn karin baa ku dhaca yani xukuumadda federaalka soomaaliyana dadka runtii way batri garaysay ma aha yani 2 goor ayay jebisay kuwii aafada ku hayena kama aanay xoreynin laakiin mar labaad inay yani sidii hore ka daran ugu soo noqdaan ayay kaliftay waa arrin aad iyo aad naxdin u leh laakiin siyaasadda levelkeeda markaad fiiriso waxay ku farxayaan madaxweyne xasan sheekh iyo tiimkiisa ma aha iyo markii lagu sii xiro yani waa la socotaa suldaano ninkii ahaa la taliyaha amniga inuu iscasilay si aad iyo aad la yaab u leh oo mugdi fara badan ku jiro yani waxuu isku casilayna waxa un arrimaha la xiriira weeye guud ahaan la xiriira marka taana waa lala xiriirin karaa inuu yani nidaam fashil ku dhamaa ku sii socdo uu yahay iyada arrinta kaloo lala xiriirin karo waa in dadaalkii la waday ah bal si uun in loo dhoodhoobo oo laisku kabkabo oo la howlgeliyo mashruucii awesome la dhihi jiray in iyaduna dunida iska soo taagtay taasoo xiriir toos la yeelan karta yani fashilka uu safiirku sheegayo marka waa arrin guud ahaan aan u wanaagsanay wey runtii xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa of course in shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadkii yani mar walbaba ay dhibaatada ku hayeen haddana mar labaad dhibaatadii ka weyn loo geysto waa waxyaabaha looga adkaan layahay wey al-shabaab maaragta marka su-aalo badanna way keenaysaa way soo oogeysaa oo ah yani waa maxay ajadaha laga leeyahay ultimately muxuu yahay in intii meelo la xoreeyo haddana somehow si fudud looga soo baxo oo khasaaro weyn uu ka yimaado maxay tahay ajandaha ka dambeysa waa su-aal mar walba la isweydiin karo wey waayahay professore waxa runtii isweydiin mudan amaan jeclaan lahayn wax kaa weydiiyo bal si aad wuxuun inooga iftiimiso juhdi badan iyo dadaal fara badan baad moodaa in adduunku ku bixiyey in la dagaalanka argagixisada ee soomaaliya aad baa soomaaliya loo taakuleeyey ciidan badan baa loo soo tababaray qalab badan baa loo keenay imkaaniyaad fara badan baa la siiyey dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud intii uu yimi wuxuu aad xoogga u saaray ama uu kolligood eysaynu intaynu arkaynay warbaahinta ka sheegay dagaalka dhanka waxaa argixisada ah oo weliba aagaas hirshabeelle ilaa iyo meesha la yidhaahda galmudug ku aadanaa shacbiga laftirkooda qayb ka ahaayoo hormuud dagaalkaas u muuqanaya inay ka yihiin especially reer hiiraan oo xoogga runtii saaraya dagaalkaas inay xaqiijiyaan guulo waaweyna ka gaaraan su-aasha isweydiinta le waxay tahay xaggay salaadu xaggay ka xidhmi laadahay dagaalkii ka dhanka ahaa argagixisada maxaa keenay in lagu guuldarayso halkii la dhaafi waayo islaan baa hadda kahor waxaa laga hayay ninka xooggaas iyo gabadheeda kama ilma dhali waayene wuu hakranaya meesha ma hakrasaa jirta maxaa khaldan maalin walba waxaynu arkayna imanka wasiirkii gaashaandhigga ee soomaaliya oo doobiyaya oo ilaa iyo awdal iyo meelo fog ka hadlaya maanta waxaan arkayna wasiir jenaraal orowa nin la yidhahdo dhalinyaro ah oo sida jiro ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madax ka aho suldaan reer awdala la sawiran waana waxaynu xasuusanaa waa dhexdaas meesha la yidhaahdo aadan yabaal iyo inuu ciidamadii joogay uga soo fakaday professore xaggee ayay salaadu iska qaban lahaada haddiiba la dayacay deegaanadii kale oo dhan oo ama ha noqoto koonfur galbeed soomaaliya ama jubbaland aan wax gurmada iyo istaraatijiyad dagaal oo ka dhan kooxaha argixisada ama dadka deegaanka degan lagu caawinaya aynan marnaba arag maxaa ugu yaraan loogu guulaysan waayey hirshabeelle bal galmudug waxay noo dambaysee in kooxaha argixisada laga saaro sulano su-aashan su-aal marar fara badanna la isweydiiyey wax fara badanna ay mugdi ku jiraan wax fara badanna la ogyahay nidaamkan jamhuuriyadda saddexaad la yidhaaho markii dalka lagu soo noqday sheekh shariif laga soo bilaabo
ma aha nidaam u qaabaysan hab dawli ah yani oo leh yani shuruucdii dowladda, nidaamyadii dowladda, howlgalkii dowladda, ajandihii dowladda le ma aha. Mararka qaarkoodna waxay isku milal yihiin hay-ado aan dowli ahayn, mararka qaarkoodna usii gudbaysa hay-ado